السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada waa Maxamuud cashirkan waxaynu ku qaadanaynaa 10kan ereyo meesha noo saaran ereyga koowaad steer waa hagid ama hogaamin yani inaad wadada ku hagtid ama wadada ku hogaamist inta badan waxa loo isticmaalaa gawaarida ama maraakiibta yes inaad hagtid ama aad wadid yes ereyga labaad stan waa adag ama kulul for example dayma kulul hadal adag digniin adag stan marka qaabkaas loo isticmaalaa for example his stern warning made them stop ama the teacher had a stern look when students talked macallinkii ardayga markuu fiiriyay si adag oo severe ayuu u fiiriyay yes yani inda kulul buu ku fiiriyay ama digniin kulul oo adag ayuu bixiyay yes ereyga saddexaad stick loo micno leeyahay micnaha koowaad waa usha caadiga ayaa la yiraahdaa stick ereyga labaad stick waxa weeye ku dhagitaankan yani koolada oo isticmaali kartaa qofka qorshihiisa inuu isaga dhagnaadana oo isticmaali kartaa saale koolada yani sticky baa la yiraahdaa way kugu dhageysaa ama qof waxa leedahay hey stick to your plans qorshahaada ku dhagnow ha bedelin yes marka stick ulna oo isticmaali kartaa ku dhaganaashana oo isticmaali kartaa ku dhaganaasha ay koolada keentana oo loo isticmaali karaa qofka qorshihiisa iyo waxyaalaha uu sameeyo inuu isaga dhagnaadana oo isticmaali kartaa yes ereyga afraad Steve waa adag yes the door was stiff albaabku waa adkaa rigid wax adag waay muruq haduu yahayna I'm feeling ama my muscles feel stiff after exercising yani muruqaha way gag bay noqonayaan waa yes marka Steve waa adkaan next Steve waxa la yiraahdaa yani inta badan cudur la yiraahdo meningitis markuu qofku dhaco qoortiisa way adkaanaysaa xitaa ma leexin karayo ereyga shanaad stimulate waxa la yiraahdaa yani waxa kani wax kicinay yani wax bay kicinayaan they start something or they cause something whether it's an action or a response yani ficil ama action inuu dhaco bay sabab u noqonayaan yes for example government spending acted as a stimulus for growth stimulus marka qaabkaas loo isticmaalaa ereyga lixaad star waa walaaqitaan marka wax isku walaaqid baa la yiraahdaa star for example stir the soup to prevent burning maraq walaaq yes star ereyga toddobaad stitch waa tolitaan tanuu dhakhtarka qofka tolayo waa la dhihi karaa dharka caadiga oo la tolaayana waa la dhihi karaa yes balse dharka markay joogto waxaa u isticmaashaa yes marka toddoba qodob baa hebel la tolay afar qodob baa la tolay qodobka caafimaadka ay qofka la tolayana waxa la yiraahdaa stitch ereyga sideedaad strain inta badan muruq markii aad maxay ahayd adoo banoon ciyaaraysid ama ku ordaysid markuu ku go'o waxa la yiraahdaa muscle strain waa markuu dhaawac ka soo gaaro muruqa strain yes ereyga sagaalaad strand waxa la yiraahdaa yani hal xabad tin ah timaha faraha badan ama hal xabad dun ah ama hal xabad tin ah waxa la yiraahdaa strand yes for example a strand of hair or a strand of thread yes strand marka qaabkaas loo isticmaalaa strand waxa kale oo la yiraahdaa qof inaad kaga dhaqaaqdid isagoo ku jira xaalad adag yes for example she left me stranded aniga xaalad xun ku jiro ayay iga dhaqaaqday yes ereyga tobnaad u dambeeyo vandalism waxa ka yimaaday vandalize waa burburin yani kasi kibir xooladadeed inaad u burburisid ku tumatid ayaa la yiraahdaa vandalism yes he reported the vandalism to the police yani burburinta ay alaabaha laga burburiyay wuxuu report gareeyay booliska ashka intaas ayuu ka yahay keep learning and have a good day bye